Paul iyo waliba marka horta waxyaabihii nooga dhashay oo ilaahay baa yiri inna ba'dal usri yusra dhibaato kasta wax ka dambeeya wanaag marka wanaag ka dhashay wuxuu ahaa in intaas adduunku noo yimaado noo soo gurbadaan Soomaaliya focus noqoto marka iftiin baa ka soo baxay laakiin anana intii aan badbaadin karno dadka waa badbaadinay ilaahay mahad badan ma dhiman runtii waan gartay aad baad u mahadsan tahay waxaad ka mid ahayd saxiixayaashii qariiradii kumeel gaarnimada looga baxay ee road mapka waxaad gacan ku lahayd dabcan samaynta dastuurka dalka Soomaaliya waxaad u tartantay madaxweyne waana lagaaga guuleystay maadaama aad goob joog ahayd doorashadaasi ma la oran karay adiga ma kula ahayd mid hufan dabcan fiiri wadan waxaan ahay soo koraya wadan waxaan ahay dib badan ka jirtay anugu wax kasto yani shakhsiga waxa ka muhiimsan isbedel inuu yimaado wadanka waxaanu isbedelkan anigu doonayo weeye oo ahayd Soomaaliya image-keedu isbedelo aragtidu isbedesho nabadgelyada security-ga isbedesho dhaqanka iyo culture-ka dowladnimada isbedelo ilaa xadna waan bedelnay runtii marka tayada yani shakhsiga inay hirgasho in hirgelin waxa ka weyn taas kale oo weyn mar walba xasuuqan jiray waxa weeye haddii mar walba wax kasta aad qabanayso aad ka eegto dantaada gaarka waxay u badan tahay danta gaarka inaad hirin taa danta guud ay dhunto laakiin mar walba aad ka eegto wax walba sameynayso danta guud marka waxa dhici karta danta guud inay fusho taada gaarkaana ay fusho waan gartay marka ma ahayd mid hufan boqolkiiba boqol de wax hufan ma jiraan waan gartay laakiin waxaan isleeyahay waa dadaasheen inaad sameysaan doorasho xalaala laakiin de dabcan waqtahay different minutes baa jira dadku isticmaalayaan oo ah qof inuu ku guuleysto marka taasuna waxay ahayd free and fair for all waqtahay bay ahayd marka waxaan isleeyahay doorasho tii waa u dhaweyd hufnaan ugu dhaweyd bay ahayd oo wadanka dhacday waan gartay adigu maadaama aad ra'iisul wasaare xilligaasi ahayd dhanka khibrada ka faallooda arrimaha Soomaaliya saadaasha cidda madaxweynena ku soo baxaysa xaggaaga bay u badnayd marka maxaa sababay guldaridaas isbedelay waxa weeye waxay badan ba isbedelay runtii oo qaarna ahaan wax external ah oo anaga naga baxsan waan gartay iyo qaarna waxay ahaayeen waxyaabo anaga farsamo waxba dhankeena ka timid waan campaign-ka marka labada isugu jirta wax gaar oo aan rabo in meelaha aan ka sheego ma wax external waa jireen oo anaga naga baxsanaa wax anaga gudaha iyaga farsamo ka xbaatana waa dhici karta inay jirtay laakiin aan filayaa waqti waxa la yiraahdaa waxa jirta wax aad u qabto khayr oo shar ku ah waxa shar oo khayr ku ah aad iyo aad marka anigu isma bedelin niyadii isma bedelin madaxweynaha cusub doorashadiisa waa soo dhaweeyay oo socotaan waan gartay marka si fiican waxaan rajaynaynaa yani taariikhdooda de gadaal bay u dambeysaayo haddaan anigu mar raab inaan tartamo anoo experience-kii tii hore leh way dhici kartaa inaan suubiyo marka dib iguma hayso waan gartay doorashadii magaalada Muqdisho ka dhacday oo taariikhiga ahayd markaad ka tagtay ka gadaal waxaad booqatay deegaanada Puntland halkaasi oo aad socdaal ku martay qaybo ka mid ah gobolada Puntland socdaalkay ka gadaal waxaad ku soo noqotay magaalada Gaalkacyo halkaasi oo aad shir jaraa'id ku qabatay shirkaagii jaraa'idka waxaad ka hadashay waxyaalihii aad adiga lagugu yiri inta badan sidoo kale waxaad talooyin baad u soo jiidaysay maamulka Puntland talooyinkaasi waxa ka mid ahaa in doorashada ay qabtaan waqtigii loogu talagalay ee January doorashadii maamulka madaxweynaha Puntland oo hogaamiyay madaxweyne Faroole doorasho ma dhicin sanad dheeraadna waa ku darsadeen marka arintaasi sidee baad u aragtaa hadee anigu markii wadanka tagay oo soo maray waxa igu leeyahay waxa weeye wax aniga agenda oo personal on laha ma jirin waxaan ka hadlaayeen waxay ahaayeen wixii dadku ay ii sheegeen waan gartay marka in loo qaato xumaan maaha waa sixitaan weeye wixii khaldan in la saxa loo baahan yahay hadii wax khaldan yihiin marka ma kan niyad jabtay Puntland mar hadii doorashadii ay dhicin maya absolutely taladaadina la qaadan way maya absolutely kama niyad jabin waxaan rajaynayaa in isbedel imaan doono insha Allah haduusan January dhicin waxa laga yaabaa ka gadar inuu yimaado isbedelkaasu dadka Puntland waa dad u bisil isbedel waa dad runtii wadaniyiina waa dad wanaaga jecel waa dad dhibta nacab waa dad yani runtii kama mar walba inay helaan dawlad istaahilaan marka waan gartay bal hadii aan dib ugu soo noqono shirkii jaraa'idka aad ku qabatay magaalada Gaalkacyo in badan
waxaad soo gudbisay eedeymo ka imaanaya dadka aad la kulantay maalan waxaad leedahay bulshada aan la kulmay ayaa waxay ka cabanayeen caburin bulshada aan la kulmay ayaa waxay ka cabanayeen in loo diiday inay iyaga wada kulmaan marka wax inta badan waxay u badnaayeen wax eedeyn lagu soo gudbiyey waxaad adiga indhahayga saartay ma jiraan marka eed lagu sheego dadka horta inaad dhegeysta weeye mucaaradka iyo muxaafidka labadaba waan gartay haddaad rabto runtii good judgment inaad suubiso oo waxaa ay yihiin wax objective oo inaad suubiso waxaan rabaa inaad mucaaradkana aragto muxaafidkana aragto runtii anigu yani wax badan oo arkayay say u haaya xataa inaan u sheegin baa dhici karta anagoo ilaalinaya nabadgelyada iyo securityga iyo wanaagga iyo horumarka Puntland anigoo xeerinaya oo tixgelinaya kamana hadleen xataa aniga waxyaabaha qaarka oo individual ay soo gaarayay mana ka hadleen wax personal weeye waan gartay waxa ka weyn danta guud iyo inaad ka hadasho waxa dadku ay qabaan dhibta ay ku qabaan anigu waan u imid waana ka soo tagay waan gartay marka laakiin in ay anigu ogaado waxa wadanka ka jira ma kaliya yani dhib dawladda dhankeeda ka imaanaysa wixii kale xataa oo dheeraad oo jira shabaabka iyo shidadiisa dhaqaale xumada jirta waxa jirtay shir saxaafadeed ama war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Puntland war saxaafadeedkaasi ayaa waxa lagu tilmaamay socdaalkaagii inuu ahaa mid khalqal lagu gelinayo amniga Puntland waxa sidoo kale lagu eedeeyay in aad ka hor istaagtay dhaqaalaha caalamka ugu deeqay Puntland marka eedamahaasi sidee baad u aragtaa aan idin sharxo horta haddii project dhaqaale uu yimid Puntland hadda aeroboorada la dhisayo oo dawladdu sheeganayso أنا صحيحي أنا ترى أنا صحيحي فرانكو فرتين أنا صحيحي قف الدوكومنت كان صبها أنا عدينا أنا وهي لا ضبها أنتي أي هذا وانقرت مركب وحبة كم هو يستاجن بعد لا أنا أبو حنقولها هاي واحد سلايا واحد بدن أو أنا سلايا هاي مركي وعدالة الصوارية أما تصد برسين أي قاتين ما سلايا مشاريع ده أهم نقطة الحكومة بوتلاند وحنقول ده غني أنا قلب كان اسمها كذا ودوين كودن waxaan ku wareejiyay dawladda Puntland wasiirkayga hore dawladda hawlaha guud Saciid Qorsheel iyo wasiir ku-xigeenkii wasiir dawladihii gaadiidka Saciid Qorsheel iyo wasiir ku-xigeenkii hawlaha guud Xareed Xasan Cali waa qalabka dhismaha jidadka waa infrastructure oo dawladdu ka soo gadatay Dubai oo aanu dawladda federaalka ay soo gadatay Puntland baan ugu deeqnay inay ku dayactirtaan jidadkooda aeroboorada waxaan ugu deeqnay lacag ay nasiiso dawladda Talyaanigu tan ku sheegay September 2011 aan ku soo saxiixay meesha la yiraahdo aan ku saxiixay New York wasiirka arrimaha dawladda Talyaaniga hore Franco Frattini ka bacdina markaan tagay January Talyaaniga 2012 aan la soo saxiixay dawladda wasiirka arrimaha dawladda iyo Prime Minister markaa jiray Mario Monti in la dhiso aeroboorada Puntland qaarkood marka waxa laga hadlayo dawladda Puntland miyaa ayadu tagaysay oo international meeting la hadlaysay soo aniga maaha ninka la hadlayo oo yaani mashaariicda keenay marka eedaasi waa eed qaldan baa leedahay waa war iska fasariya oo iska ciyaar suuqnimo waan gartay marka Puntland halkaas aan uga hareynaa dhanka dawladda federaalka isbedel baa dhacay madaxweyne cusub baa la doortay ra'iisul wasaare cusub baa jooga baarlamaan qayb badan intooda badan kamid ah waa cusub yihiin sidee baad u aragtaa dawladda cusub haddartan adiga shakhsi ahaan والله دولة عصود وصود وين اسبدل كي أنا وحنا كشقين نوي وحنا كشقين إن مره هذه لا نو هالكسنة يعني قرحي نبتو قلت الري يحوجاج حدي أي صوص عرتي وين إنه مركو وصود وين يسان وصود وين إنه دولة وصود وين هي رجع شغل يعني صاحبنا هاي قاركو قاركو أصحابنا هاي قاركو يعني يعني دولة كودا شرني قاركو وزيران دولة هو كودا هاين marka waxa soo dhani waa weeye waxay keenaysaa inaan marka soo dhaweeyo support gareeyo waxay tala iga baahan yihiin aan siiyo hadii wax khalad jiraan aan u sheego xataa aan saxo oo la hadlo marka aan waxba aan kala baqayn marka hadaan uu soo bixi waayo micnaheedu ma aha wixii meesha ka soo baxay kama soo horjeedi baa leedahay marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa socdaal dhawaanahan ku maray dalal badan oo reer galbeed ah khibrada indha arrimaha Soomaaliya ayaa arrimahaasi ku micneeyay inay guul weyn u soo hooyatay dalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu madaxweynaha dalka Soomaaliya kala kulmay meelo badan uu tagay dibadbaxayaal ka soo horjeeda isaga mar aan aniga shakhsi ahaan mikrofoonka la dhax qaatay dibadbaxayaasha magaalada Minneapolis ayaa madaxweynaha waxay ku eedeynayeen inuu ku tuntay dastuurka dalka Soomaaliya isla markaana
uu gees maray nidaamkii federaaliga lagu soo doortay adiga shakhsi ahaan haddii bannaanbaxayaashaasi ay ku weydiin lahaayeen madaxweynuhu ma ku tuntay dastuurka ma gees maray federaalka sidee baad uga jawaabi lahayd wadaa kuu sheegay horta it's too early waxa weeye waxa la sheegayo fiiri dowladda afar bilood bay jirtaa waan gartay markaan waxaas leeyahay waqti hala siiyo waqti hala siiyo time hala siiyo federaalka cidna kuma tuban karto federaalku waa wax lagu heshiiyey anugu maana keenin 9 sano ka hor baa carta lagu heshiiyey carta maahan imbigaati lagu heshiiyey in dowladda federaal la qaato waana kasii horreysay tii Djibouti lagu soo dhisay waxay ahayd dowladda federaalka TNG transitional national government tii imbigaatina waa lagu heshiiyey waxa la yidhi waxaan qaadanaynaa transitional federal government dowladda waxaan noqonaynaa federaala waxaa ku heshiiyey warlordskii joogay markaas waxaa ku heshiiyey maamuladii jiray waxaa ku heshiiyey civil society jiray international community kulli waa lagu heshiiyey marka waxa hadda debate ku ka jira ma federal ma noqonaa mise ma ahin taa dood kama taalo cid dood keeni kartaana ma jirto laakiin waxaa la sugaya waxa weeye maxaa awoodaho ay dowladdu leedahay yani dowladdu gobolladu maxay ogol yihiin dowladda dhexeys maxay ogashaa gobollada waxyaabaha debate hadda laga furi kara taa wey see loo qaybsanaya resourceska dalka khayraadka dalka see loo qaybsanaya systemka canshuuraha iyo fiscal federalism see loo hirgelinayaa waxyaabaha noocaas in laga dooda weeye laakiin lagama doodi karo federaal ma ahin doodaas is a mute point wax jira maaha waxaas doodaasi ma jirtaa leedahay necessary maaha inay jirtaan ugu dambeyntii xilal fara badan baa soo qabatay nin aqoon-yahan baa tahay maxaad rajaynaysaa mustaqbalka adiga shakhsi ahaan in adiga aad qabatid shakhsi ahaan wallahi anigu am happy waan faraxsanahay noloshayda hami siyaasadeed ma leedahay hami hadda balaayada moogta maaha weligeed in siyaasad un kaliya laga shaqeeyo adduunku nolosha siyaasad kaliya maaha siyaasad wax fiican maaha waa wax dhib badan weeye actually mararka qaarkood waxaad oranaysaa qof ilaahay yaqaan wuxuu ka shaqeeya ma waa siyaasaddu marka in wax kaloo badan oo qabtaa badan yani khayraad waxya badan oo khayraada laga shaqeyn karaa waxbarasho caafimaad biyo horumar that's what matters runtii at the end of the day wax taasti weeye tan runtii loo baahan yahay in laga shaqeeyo contributionkaaga oo ama aakhiradaada ama adduunka labadaba u fiican marka haddii wadankayga mar dambe ii yeerto oo eurocall wax la yidhahdo waa laga yaabaa ay timaado waa laga yaabaa laakiin hadda am happy ay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaas oo fursad waqtigiisa qaaliga ah inagu siiya aan kula sheekaysano aad baad u mahadsan tahay waa ku mahadsantahay su-aalahaaga adkaana